بسم الله بريبا waxaa jiray nin lahaa diiq ama diig qof kastaba sida uu garanayo sida caadada ah digaaga kan lab ee ah diiga ama diiqu subaxda hore uu aadaama dadkana salaada u toosiya ninkii diiqaas lahaa wuxuu dhibsaday inuu dadka salaada u toosiyo codka iyo qayladiisa dheer ayaa subax kasta hurdada ka khasi jirtay maalintaas uu yimid markaasuu ku yiri hadad mar dambe nagu ciido oo codkaaga dheer aad sare u qaado baalashan qaatifi doona waan ka goorici doona diiqi wuu cabsaday wuxuu ku fikiray in ay jiraan diiqyo ka duwan oo aadaami doona subax kasta sida darteed uu isagu iska aamusay isagoo naftiisa u baqaaya maalmo kadib ayuu haddana ninkii diiga lahaa u yimid haddana wuxuu ku yiri haddii aanad sida diiga kale u ciyi karin rafacaaga ah maad walba sida digaagada dhadiga u ciidid ee sideeda u qaylisoo socotid diigii haddana wuu tanaasulay wuxuuna ka baqay in baalasha laga tifo lana gowraco haddana wuxuu bilaabay inuu muddo u ciyo sida digaagada dhadiga ah markay muddo ka soo wareegatay ninkii diiga lahaa wuxuu iloobay wuxuu lahaaba inay diig ahaayeen markaas uu mooday digaagad uu u yimid wuxuu ku yiri marba hadaad sida digaagada u ciyeyso oo sideeda kale u socoto waa inaad ukun ama beed ii dhashaa oo aan subax kasta kaaga tashtaa xabad ukun aan ku quraacdo diigii wuu calaalay wuu ooyay maalintaas ayuuna yiri shalaytidaydii maxaan shalay u dhiman waayay anoo diig ah oo aadaamay sheekada waxaan uga socdaa hadaad ibn aadanka u tanaasusho oo ay shakhsiyadaada iyo qofnimadaada aad uga tanaasusho marka dambe waxay ku moodayaan inaanad qof ahayn oo aadan wax qabsan karin laakiin hadaad halkaaga iyo naftaada iyo sidaa tahay ku taagnaato oo aad diiday inaad ka tanaasusho qofnimadaada weligaa adoo sarreeyaad dhimanaysaa oo sharfan maanse aan lahaabaa waxaa ku jirtay naftan quruxda jamataay soo qaada sahay oo yaan quudku kaa go-in war qalfoof ma tihidee ruuxda ka qaaliya qaybtan muuqatee sare waxaan ku leeyahay ruuxdaada ka qaaliya qaybtan muuqatee sare qofna ha uga tanaasulin noloshaada adiga ah boqorka ugu sarreeya dunida guuleyso